waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida jeclada ka joogtaan halkan waa Ruta TV oo aad naga daawataan laba daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijyadeennii arrimaha bulshada iyo kuwa fanka war degdeg ah oo haddana soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan in fanaanka caanka ah ee Khadar Kayow xarigiisii uu ku xidhnaa magaalada Addis Ababa ee hadda laga soo dayn doono. Warar hoose oo aanu helayno ayaa waxay sheegayaan in xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ay wada hadleen, waxaana isku afkarteen in maalmaha soo socda la soo dayn doono fanaanka ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu ku xidhnaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, halkaas oo la garan waayay waxyaabaha loo haysto ilaa haddana lagu muransan yahay sababaha loo qabsaday. Laamaha ammaanka Itoobiyana aanay ilaa haddaba xaqiijin waxyaabaha lagu haysto. Si kastaba ha ahaatee, fanaanka caanka ah ee Khadar Kayow ayaa maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada qabsaday, taas oo la hadal hayay xarigiisa ayaa fanaanka loo eedeeyay in fanaanka uu ku khaldamay markii horeba in uu baasaboor been abuur Itoobiya ku galo. Dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in fanaanka waxyaabaha lagu qabtay ay ka mid ahaayeen hadiyada uu waday jacaylkiisa oo uu markaasi u waday oo halkaasi Itoobiya ka galiyay, taas oo gebi ahaanba Itoobiya ay mamnuuc ka tahay in waxyaabaha kontrabaanka ah la geeyo halkaasi. Sidoo kale, dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in fanaanka loo xidhay hees uu Itoobiya ay lahayd uu fanaan Itoobiyana dacweeyay kabacdina lasoo basaasay fanaanka. Si kastaba ha ahaatee, fanaanka caanka ah ee Khadar Kayow ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda gebi ahaanba lasoo fasaxo ama la soo daayo, waxaana aanu helaynaa warar hoose oo ay noo xaqiijiyeen dadka ag dhow dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegaya in gebi ahaanba fanaanka wadahadal ay kula jiraan dowladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan waaxda immigrationka ama wasaaradda arrimaha dibadda, halkaas oo la filayo in ay isku afkartaan. Waxaa kaloo oo la sheegay in fanaanka waxyaabaha la isku afkartay ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya isku afkarteen ay tahay in fanaanka la soo daayo xorriyadiisana dib loo soo celiyo, laakiinse ilaa iyo hadda dowladda Soomaaliya may sheegin sababta fanaanka Soomaaliyeed ahna muwaadin Soomaaliyeed loogu xidhay gudaha Itoobiya, taas oo la filaya in maalmaha soo socda la ogaado. Sidoo kale, fanaanka ayaa la filayaa marka la soo daayo in uu ka hadlo waxyaabihii lagu xidhay iyo sababtii uu Itoobiya u tegay iyo waxyaabaha baraha bulshada la isla dhex marayo. Si kastaba ha ahaatee, fanaanka caanka ah ee Khadar Kayow ayaa dad fara badan oo aad u taageera ay aad uga xumaadeen, waxaanay sheegeen in fanaanka shirqool loo dhigay, shirqoolkaas oo ah in aanu kasoo bixin godka ay ku xidhay dowladda Itoobiya. Dadka qaar waxaana sheegeen in fanaanka maalmihii ugu dambeeyay xaaladiisii ay aad u xumeyd, jeel ku yaala gudaha Addis Ababana uu ku xidhan yahay, taas oon haba yaraatee cidna loo sii deynin, cidna aan loo ogolayn inay ka soo qayb galaan ama ay soo arkaan. Taageerayaal fara badan oo uu leeyahay fanaanka caanka ah ee Khadar Kayow ayaa ka hadlay, waxaana sheegeen in fanaanka ay aad uga xun yihiin xadhigga loogu geystay gudaha Addis Ababa, laakiinse ilaa hadda lama oga fanaanka sababta loo xidhay, waxaana isweydiin mudan waxyaabaha uu ka doonay ilaa hadda aan la ogeyn. Fanaaniinka ag dhow fanaanka caanka ah ee Khadar Kayow oo aanu wax ka weydiinay ilaa hadda wax warbixin sugan ma siin. waad ku mahadsantihiin daawadayaal meel kastoo aad dunida jeclada ka joogtaan. Fadlan channelka subscribe noo saara, asxaabtiina la wadaaga oo sii share